إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون اللهم اجعلنا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى البردين دخل الجنة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إلهي تبارك وتعالى وعليهنا أومي أدويدنا عن جرمة إن كاني ويان هدفك إلهي وأدويد إنه كاننا وإلهي عباد الديسة عبادة إلهي إن كفو ذاته هذا دوني سيدنا لابد شيء ولقاها هالمامن allihii ku abuurayna ha hayloobin oo ha halmaamin daarta weyn ee aakhirada la ilaahay aanu wada soconana ha halmaamin. allahu rabu lcaalamiin isagaa ina keenay adduunkan oo bashar inaga dhigay oo ina karaameeyey oo bashar weliba intuu inaga dhigay haddana dad muslimiin inaga dhigay muslimiin. islaamnimada inagu ma dalbina ilaahay baa inala doonay waa cataa ilaahay baa inagu deeqay inaan muslim noqono oo diinta islaamka aan ku abtirsanno waa doonista ilaahay baa inala doonay. khalqi fara badan baa ilaahay abuuray oo bashara oo adduunka dusheeda inagula nool. ilaahay islaamnimada uma deeqine innaka ilaahay islaamnimada inagu deeqay maanta. waddanka South Africa beri annagoo joogna ayaa nin cadaan oo South African ayaan dacwadan u bandhignay. markaasuu nagu yidhi waxaan aad igala hadlaysaan ma fahmayo. ilaahay baan uga sheekaynay cadamadiisa sida khalqiga uu abuuray ee nolosha uu noogu deeqay ee dhimashada uu noogu qasbay ee risiqa uu bini aadamka u siiyo. hadalla erayada noocaasaan iyo yar xasuusinay. wuxuu idhi hadalka ad igala hadlaysaan ma fahmayo mana maqal buri weligay. hooyadayna iimay sheegin, macallimiinta iskoolada ii dhigaysayna erayada aad ii sheegaysaan iimay sheegin buui. marka nimanyow hadalkaa madaxay uma qaadi karayee iga dhaafo wax kale ii sheegay buui. markaasaan ku yidhi hay anaa su-aalku weydiinaya iga jawaab. waayahay buui. ayaa ku abuuray baan ku idhi. wuxuu ihi hooyadii baa dhashay buui. hooyadaana ayaa abuuray. dabeedna hooyadeed baa dhashay buui. ayaydaana ayaa abuuray. iyadna hooyadeedii kalaasay dhashay.
وأن داديسا أكو قياسة دوري أفرتين جر caqligiisii wuxuu dhaafi waayey aniga islaam baa i dhashay islaamta islaam baa dhashay islaamtaa kale islaam kalaa sii dhashay xataa oday baa i dhalo odhan maayo markaasaan xasuustay aayaddii qur-aanka ahaydee ilaahay uu yihi summun bukmun cumyun fahum laa yacqiluun ilaahay baa sheegay gaalada waan qufulle kuwaas maqalkiina way leeyihiin laakiin waynan arkayn baa ilaahay oo xaqa arki maayaan maqalkii way leeyihiin oo dhagihii way ku yaalliin laakiin dhegtii xaqa lagu maqlaayo ma qabaan oo dhegtii uma furno hadal way leeyihiin oo way hadli karayaan laakiin xaqa ma sheegi karayaan markaasaa ilaahay kuwaas weligood ma caqlinayaan araggii baa laga xidhay oo xaqiiqada arki maayaan waxaan adduunkay arkayaan bas laakiin adduunka maxaa ka dambeeya ma arkayaan hadalka sheekada adduunyada dhegta way ku maqlayaan laakiin warka aakhirada ma gali karayo nin zindiiqa zanaadiqa oo mulxid ahaa ayaa waddanada islaamka ayuu yimiday wuxuu dad muslimiin oo badan uu ka dhaadhiciyey koonkan isagoo sidana unbaa ku soo biirnay isagoo sidanana waan ka baxaynaa mid wax abuuray ma jire waa wax laynaga dhaadhiciya iska saara buu ka yidhi imaam marka amiirkii muslimiinta ay markaa xilligaa joogay baa loo sheegay waa loo yeedhay ninkii gaalka ahaa waxaa la yidhi nin yahow wararkana naga kaa soo gaadhay maxaa ka jira waa run buuhi i qanciya buuhi waana run baan ku hadlayaa buuhi anigu yahay hallay qanciyo oo cilmi ha laygu qanciyo waana iga dhaadhacsan tahay buuhi aniga in mid wax abuuray meesha uuna jirine cirka iska taagan un baan imanay dhulkoo sidana un baan imanay buurtu halkaa taallo un baan imanay dabiici wax walba waa natural imaam xaniifa allah u naxariistee marka ayaa noolaa waa loo sheego lihi nin caynkaasa ayaa munaadaru rabaa munaadaro sheekhow bal adiguna soo diyaarsa aqoontaadiyo kaale ninkaa maaragtaana cilmi ahaan bal ku qanci oo ninkan wuxuu la soo taagan yahay cirkan waa sidaa unbuu iska yahay dayaxu uu iska soo baxa uu dhaca cadcaddu iskeed bay u socotaa baddu iskeed bay meesha u joogtaa buurtu iskeed bay meesha ugu taagan tahay mid wax abuuray oo nidaamkan ka dambeeya ma jiro ayuu la soo taagan yahay waa mulxid waa kuwa odhanaya laa ilaaha walxayaatu maadda ilaah ma jire noloshuna waa maaddo oo lacagtaada ayaa kuu haysa deedna waxaa dhacday imaamkii waayahay ballamiyay buuhi maalin baa la ballamiyey fagaaro ayaa lagu ballamiyey dadkao dhanna way isku yimaadeen ninkii gaalkiina uu joogaa meesha imaamkii muslimiinta ee sheekh nucmaan binu thaabit imaam xaniifa raxmat ullaahi calayhi ayaa wuxuu la idhu kadib dhacay maaragtaanay ballantii ninkii gaalka ahaayee mulxidkii wuxuu la soo taagan yahay inaad been haysaan oo been meesha aad ku haysaan anu waan iska garanayay waayo kii iniigu sheeksanaaba waa kaasoo ballantii ma ilaalinaya soo ma arkaysaan madaxii markaa muslimiinta iyo culimmadii muslimiinta iyo dadkii meesha jooga way caroodeen sheekhu sawka nagu bahdilay maa meesha hadallo u eg sheekhii oo markaa xilli dambe oo meeshii la rabo in lagu kala dhaqaaqo ordaya ayaa yimid markaasuu yidhi bal joogsada maxaa dhacay sheekh waadna bahdishaa lagu yidhi nin diin rabta in lagu qanciyaan kuu ballaminay ballankiina isagu u ilaaliyo dad hortii buu yimiday adigii dhannaayo caalimka noo ahaaye sheekheenna ahaana ballankiibaad kadib dhacday isagiina waa ka halka taagan oo farta kugu fiiqfiiqaya wuxuu leey waa ka sheekhiinii ballantaan buux aan ilaalinayn markaasuu dhib male buuhi anaa ka jawaabaya taas imaam xaniifa sidaa leh wuxuu kaga jawaabay wuxuu ihi meesha munaadarada aan ku galayna buu yidhi isagii buu ku leeyahay
iyo meesha anu aan deganahay waxaa noo dhexeeya tog webi oo socda sida togiinaa kaloo kale toga halkaa maraya togan magaciibu aha webigan jubba daawo webigaa socda dee daawo soo maa kii halkaa hadhu gelaya ma kismaayo ku dhacay marka wuxuu yihi marka lug lagagama soo tallaabi kara buuli waa inaan sugaa doon marka doontii oo naaquudi uunan wadin naaquudiga waa ninka doonta wada weeyaan sida ka gaadhiga wada loo yidhahdo sawaaq ama shofeer ka diyaaradda wadana loo yidhahdo baylot ka tareenka wadana loo yidhahdo conjecteer ayaa ninka doonta wadana waxaa loo yidhahdaa naaquudi doontii baa ii timiday buuri oo keligeed iska socota gaalkii waxyaabo yidhi oo naaquudi ma wadin buuri ma wadin keligeed ba iska socotay keligeed yaa haye halkaan joogay bay keligeed igu soo weecato way istaagtay haye sallaankii bay keligeed isoo tuurtay buuri haye kolkaan soo fuulayna way soo dhaqaaqday buuri haye iyadaa iswadda buuri cidna ma wado haye halkan aan munaadarada ku galayna agteeda i keento sidaasaan ku imiday buuri ninkii gaalkii qosol buu la kala baxay wuxuu yidhi sheekhiinu ballantiina uu ka dib dhacay war beenana uu la yimiday buuri imika war been oo caqligu baan aqbalayn imaam xaniifa ayaa yidhi warka beentaan la imida sheeg buuri muxuu yahay ma ninkaaga maad fayowdahay buuri mise waad waalan tahay ma madaxaad ka jiran tahay mise waad caafimaad qabtaa sidee ku dhici kartaa buu ka yidhi doon keligeed iska socoto qofba una wadin waa doon qori bini aadam baa sameeyey keligeed bay socotaabaa kaa dhaadhicila adiguma waxaad rabtaa dadka inaad caqligooga ka dhaadhicisid caalamkan intan la eg ayaa isagoon maamul oo cid maamusha aynan ka dambaynin keligii iska socda miyaad la soo taagan tahay buu ihi taas adigu cirkaa iska taagan keligii buuraha keligood iska taagan cadceeddaa keligeed iska socota ma warkaabaad adigu la soo taagan tahay buuli ood rabtaa dadka caqligooga inaad ku xadid la shamsu yanbagii laha an tudrika alqamar wala llaylu saabiqu الnahaar wa kullun fii falakin yasbaxuun وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون قرآنك إلهي كل شيء وحن آيات معناه ومحي وعلام الله قرنا يا إلهي جريتان كيس جل وعلا يين إلهي كلي أدوية مولى كلي وعد كلا أدونك إلى المامولين لكن هل كيبكو أشهاتي بالله عقليا علميا بلغوا قنعيا tusoo itaabsiibu isagu la soo taagnaa moogta ilaahaad caabudaysaan buu lahaa ama itusa ama itaabsiiya waa la taabsiiyo la yidhi waa kaa sida doontaasi ay keligeed u socon karaynin mustaxiil weeyaan keligeed inay socoto soo maahan ha waxaan kaa dhaadhicinaynaa binasi lqur'aanna kaaga dhaadhicinaynaa caqliga basharigana kugu sheegaynaa koonkan ilaahay baa keligii ka taliyo ilaahay baa maamula bilaa maamul adduunku ma joogi karo mana socon karo halkii buu markaa ninkii ku islaamay marka ilaahay caza wajalla adduunyadan isagaa ilaahay ka taliya isagaa inagu abuuray noloshaan haysanay isagaa inagu deeqay dhimashadana ilaahay jalla wacala isagaa nagu qasbay waliba dhimashada taariikhda dhimashada uu inaga qariyay ilaahay haddii lagu sheegi lahaa ka waran ilmo kastoo inoo dhasha haddii uu dhalan lahaa ka warrama isagoo taariikhda uu dhimanayana halkaa ay kaga qoran tahay say noloshu noqon lahayd ma shaqaysan lahayn bay kula tahay macaan maba yeelateedba oday baa inaanu adeeru yahay buu arki lahaa adeer iska waran ma fiican tahay dee waa dhawata caroos baad ahayd islaantii ma dhashay haa adeer wiil bay ii dhashay wiil bay ku curatay maasha allah allaha kuu barakeeyo yarkaan muxuu odhan lahaa adeer maxaa maasha allah ya halka waxaa kaga qoran 2025 bisha labaad buu dhimanayaa say nolosha noqon lahayd haddii dhimashadii lagu qori lahaa ka waran
وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. نفنا ما أوجب إلهي لا يبريت الواحد كسب الدنيا بري محل كل ما قرنيس ما شاء تقول ما نسمع قرنيس واحد بري كل سودر سي ما قرنيس ما شاء تجد دوت ما قرنيس هلا ما أسبوع كهر ما هل أسبوع كهر أنا قرشة يجيبوا مجرى هل كنا صامر بالفرس برنامج كي يجيبوا مجرى بقى وعلى اجتماع كينيا نيروبي تك ده الديارات ده نهار لو تلبى بلاد جيبوتي كذا نقول شخص اسماعيل بايلاه كده واجيو مالتا تجي كسو غوسنيني war one way no so go one way baaga iska daawuri halka waa ka soo goosanaynaa ilaahay waxa uu noo qadaray marka dhulka inaan soo marno inakani aragno masaajida nagu soo booqano diinteena isku baraarujino allahina abuuray xasuusino marka qofka bini aadanka uu iska socdaa mooyaane meel aad ku dambeynaysid bari waxa kula kulmi doona kal dambe waxa kula soo darsi doona kama warqabnay ogaada fariista adeer yar fariista adeer ma sha Allah fariista waa miskiin meesha fadhiga laazima dhageystan insha Allah ku salliya nabigeena Muhammad sallallahu alayhi wasallam shanta ilm al-ghaybka Allah mooyaane cid kale aysan aqoon buu nabigu yiri saacada roobku imanayo ilaahay baa yaqaan riximka ma ilmaha ku jira ma laba ma dhidig baa ilaahay baa yaqaan saacada qiyaamadu markay dhici doonto ilaahay baa yaqaan adigu bari waxaad kasbanaysa ilaahay baa yaqaan meesha qabrigaagu noqon doonana ilaahay mooyaan cid kale ma taqaan مشينا على خطوات كتبت علينا ومن كتبت عليه خطى مشاها تلابوين لي نقر ما كرسارنا هم كرسعنا قفل بحالك الله وتلقى لإنه مرو عد كوعين كرسا مجد واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك بالنبي صلى الله عليه وسلم وحدو قاتا وحيكو سيغي اكو قرمر السنة كوكو مدعين وحكو دعين السنة كوكو قرمر برسولك رفعت الأقلام وجفت الصحف قال لك ابو النبي يقول والله كوريا لك قرب الله قاضي قال لك واخ لغو قري والله كوريا لك قرب الله قاضي ماشي واخ لغو قري والله محفوظ كيا خد كينا waa ku engegay ابو النبي يقول meeshaas اهل الجنه والله قري اهل النار والله قري فقراء والله قري ارزاقدooda والله قدري اغنيada والله قري ارزاقدooda والله قدري مسلمين والله قري meesha ku dambeeyeen والله قدري gaalada waa la qoray in naar ku dameynayna waa la qadaray waayo ilaahay sagaas kala koonka cid balale may ka caabudaya baa leeyahay ilaahay ee caabudaya haduu cadaabana wuxuu cadaabay isagoona ku xad gudbin baa leeyahay ka caasinaya kaafirka haduu janno geliyana kaafirnimadii isyaanku la yimiday naxariista ilaahay baa ka balaaran oo ka weyn Umar al-Faruq radiyallahu anhu أيا أرجل اللهم إن كنت كتبتني في السعادة فاثبتني فيها وإن كنت كتبتني في الشقاوة فامحني منها واكتبني في السعادة فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب إلى يوم عمر بن فاروق وكنت عايزين جري إلى ودتك السعادة اللي بانيا قائمة دود هذا قدرتينا إلى هلك يوسف ورجل يوسف وطريق السعادة أدتك اللي باني وضد أي مرام ilaahu igu sug buu oran jiray haddii aad igu dartay kuwa maaragtaan ee khasaaraya naar ku dambeynaya aad igu dartayna ilaahu qaa'imada magacayga ka tirtir oo ka masax oo dadka liibaanay qaa'imadooda igu dar ka doontana adigu waad ka biisaa ka doontana liiska fiican baad ku dartaay waa Umar waa dadkii cabsida ilaahay qalbigooga ay dildilaacisay bay hayeen dadkaasi isagoo mubashira oo janno loo bishaareeyay waa ninkii oran jiray haddii samada laga dhawaaqo la yiraahdo bini aadamka oo dhan janna ay galayaan nin kaliya naar ka galay haddii la yiraahdo waxaan u maleeyay Umar oo jiray ninkaas inuu yahay aniga waa ragga jannada loo bishaareeyay waa ragga nabi maxamed uu yiri haddii aniga nabiga dambeyn lahaa Umar ba nabi noqon lahaa waa ninkii nabi maxamed uu yiri ummad walba nabi walba ummadiisa nin malaa'iktu carabkiisa ay ku hadashay ayaa jiray hadduu ummadaydu ku jirana buu nabigu waa Umar al-Faruq weeyaan waa ninkii nabi maxamed uu yiri
qasri jannada ku yaalla ayaan galay xuur alcayn dhex joogta ayaan ku yidhi qasriga quruxdan le ayaa loo diyaariyey markaa bay igu tiri nin carabeed baa loo diyaariyey aniga carabiya ma cid kalaa nin qurayshiya loo diyaariyey anigaaba qurayshiya ma cid kalaa nin ummadda nebi maxameda loo diyaariyey anigaaba maxameda ma cid kalaa cumar faaruq ninka la yidhi cumar ibnu khataab baa loo diyaariyey markaa buu nebigu yihi cumar qiiradaada maseerkaagaan xasuustay mooyaane inaan sii eegaan yar damcay buu nebigu yihi laakiin maseerkaagaan xasuusto waan ka soo jeestay buu cumar nin qiirana buu ahaa nebigu kaftanka nebiga sidaa ahaa sal alla alay slam marka cabsida ilaahay yaa maaragtaane asaas u ah diinteena islaamka inaad diinta istiqaamo aad ku yeelato ood ku toosnaato cabsida ilaahay baa yaa asaas u ah inaad macsiyadda ka dheeraato oo wanaag iyo macruufka aad la timaadana waxaa asaas u ah inay aakhirada hortaada taalla mar walba laanna ninka aakhira iyo dhimasho ku xisaabtamaya ma caasinaya rabbigii ma caasinaya ninka ilaahay caasinaya baa la yidhahda aragtid waa nin dhimashadii halmaamay weeyaan inuu dhimanayo buu halmaamay inuu dhimanayo ayuu halmaamay asxaabu rasuuli llahi sala allahu alay wasalam labadooda indhood aakhiradaasa u hortaalla iyaka markaasaa ragga qaarkood hurdadii baa ku yaraatay hurdadii maqdaad radia allahu canhu sida dheri karsamaya ayuu habeenkii gogasha dusheeda isku rurugi jiray baa uu galgalan jiray sidaa markaa buu odhan jiray ilaahayo yaa rab naarta cabsideedii baa hurdadu iga qaaday buu odhan jiray kolkaa buu iska kici jiro salaataleil buu tukan jiray rabic binu khaytham raxmat ullaahi calayh habeenkii o dhan buu salaad u taagnaa 40 sano baa la yidhi saasuu u taagnaa salaadu buu u taagnaa 40 sannadood salaataleil inantiisaa ku tiri aabba dadka jaarkoodna way seexdaane maad iska seexatidaa markaasuu yidhi aabba dusheeda jannadii baa lagu qurxinayaa hoosteedana jahannamaa lagu hurinayaa labadaa daaro dhexdooda sidee qofka u gami karaa buu ku yidhi rajul تزين الجنة فوقه وتسعر النار تحته فكيف ينام بينهما الوجود ندوشيس جنة لغو قرحنا جنة لغو تعالى إن كتاب الأبرار لفي عليين جنة وإنك سرعيسا نار ترو إنك هوسيسا وإن كتاب الفجار لفي السجين وفق نفتو مركي كان عدنا أما حقنا الروح دي صلوه قادي أما حقه صوم الله قادي marka wuxuu aaba dusheedana jannadii baa lagu qurxinayaa hoosteedana jahannama ayaa lagu hurinayaaye labadaa daar dhexdooda sidee hurday ugu iman kartaa buu ku yidhi cabsida ilaahay cabsida ay naarta ka baqayaan ayaa u diiday inay ilaahay caasiyaan nin reer bani israa'iila oo caabid aha oo cibaado badnaa ayaa naag xun oo naagaha jirhkooga gada ah ayaa meeshii uu joogay bannaankiiba ugu soo baxday ugu timiday waa keligii isaga keligii ay ayada keligeed markaasay hor fadhiisatay baa la yidhi si walba isku hor dhigtay way tiri kaale xumaan han samaynay taasuu eegaa salaad buu iska galaa uu ka baxaa xagga markuu u jeestaba way hor fadhidaa kaale wax man samaynay wuxuu yidhi wallaahi waa qurux badan tahee bal yarkaadii buu yarkaadii yarsu gabadh aad u qurux badan oo fiican baa tahee dab buu shitay markaa dabkii markuu shitay baa la yidhi fartii saasuu dabkii geliyey saasuu dabkii u geliyey fartii dhamac fartaasaa dhalaashay ilaa halkaasaa dhammaatay tan kaluu qaadoo tan kaluu geliyey isagii iska daaya iyadiibaa xanuunsatay baa la yidhi oo jirhkiisa dab ku gubay oo dabkii ku dhammaanaysa ka walla fartii iyadii baa soo boodoo halkaa bay qabatay ku tidhi waa ku daayo waan kaa tegay hasgubina ka joog bay ku tidhi wuxuu yidhi naftayda ayaa ku yar damacday damac baa igalay buui damac baa iga kaa galay naftaydii baan tusayoon lahaa haddaad dabka adduunka aad u adkaysan kartid ka aakhirana laga yaaba inaad u adkaysatide bal ii kaadi baan naftaan eegayay buuhi markaas waa runtaas naar loo adkaysan maayo orad iska soco buuhi
ما شاء الله هذا قولوا ما شاء الله هذا تبارك الله إله النار تهينا قبل بادين مؤمنكم مركو إله يكون حرية هي أدو يدو مصها مين يسقفك إيمانك لأقادا جريج الراهب أي حاسكي سيبا هو يدي بأوتي بدي سوى صلاة كنا يا صلاة وأنا ريبن إسرائيل الراهبها مركزي صلاة بوسك جرا عبيد الراهبة مركزي الله هذا الشيء جريج يا جريج وقرته هو يدينا مشى تمدي صلاة دي بمركز كواتو داريستي وين راكستي واسكا نقط مالين لبعض بيت تمدي صلاة دي بولي كجرا وين راكستي واسكا نقطي مالين صدحات بيقو تمدي وين راكستي واسكا نقطي قعما يكونوا تكتو وحي تري إلهو إن ويل كيغا أديغو أو ناغاها حنحنتو سموياني إلهو هدين بيتري هبار والدنا هوستا ما دافع اوغو والدكو عيار ما إلهو إن كيغا أدو قبرها حنحن كهور كانو كفدنا يموياني هدين بيكوتري ربنا إسرائيل با مالين مالمها كاميدا waxay isweydiiyeen warnikii cibaadada badnaa ee Jurayj wali ilaahay buu noqdo dadkii baa ka dhaxbaxay laana umadihii naga horeeyay markay damcaan ilaahay inay ku xidhmaan oo ilaahay ay cilaaqayn la yeeshaan markay damcaan baa la yiri mujtamaca way ka dhaxbaxayeen oo buuraha ilaahay ku caabudayeen halka ummadda nabi maxamed alayhi salaatu wassalaam naka doonaya ummadda nabi maxamed kamid inuu ilaahay u dhawaado oo doonaya waa inuu dadka bini aadamka uu dhex joogaayo diinta bara uu ilaahay xaqiisa ugu yeedhaa waa dariiqada kaliya muuminku ilaahay kaga xidhmi karo umadihii naga horeeyay may iyo kuwa ka dhex baxayeen dadka ruhbaan bay noqonayeen cubaad bay noqonayeen meel buura intuu iska dagaan bay halka ilaahay ku caabudayeen dadna markaas wali ilaahay noqonaya qofku amma ummadda nabi maxamed alayhi salaatu wassalaam waa kii nabigeenu lahaa المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم مؤمن كدتك دح قلايا دتك دح سعودة أمد ونستحينيا دين تبرايا دعوة قارسينيا لم يعاملونايا دتك دباتك كسو قادنا أتكيسني الصبرايا أيا كفل لبنب نبي يري مؤمن كدتك أنا دح قلينن نبكوغنا عن الصبرين ومؤمنك عابدك مسكينك دح فدياله أنا وان عبادة استوات كذا ذاتك تارك الصلاة أنا وحبي مجلين فرقك ودحيا يا مؤمنك داعية أما مؤمنك معلمك يا أمد الدين تبرايا يا مؤمنك داعية أمد دح سعودة دباتنا ذاتك كسر قادنا والصبرايا كالأرض والسماء عركي يدلك وانت اسكت جيران أي الله وضع مؤمن اسكت جيران وقادا لذلك أمده نجاه الرئي qofku markuu doono ilaahay inuu u dhawaado ilaahay ku xirmo inuu doono dadka uu ka dhaxbaxayo buur buu aqalka dul dhisanayay aqal yaro cariishu ka dul dhisanayay dana halkaad uu qofkaas ilaahay ku caabudayay reer bani israa'iil marka ninkii bay isweydiiyeen yiraahdeen war ninkii ummadii uu ka dhaxbaxo ilaahay buu ku xirmay naagaha xun ahayd baa tiri maaragtaan anu haddaan u dhaqaaqa ninkaasi waa fidnayno diinta iyo cibaadada halka uu la baxay waa ka kala daadinba markaasaa lagu yidhi ninkaasi nin aad gaari karaysid maaha baa lagu yidhi hasuwaalin ninkaasi ilaahay buu ku xidhmo dankaa gali maayo waad arki doontaan haye waad arkaysaa iyo waad arki doontaan halkii bay ugu timid buurtii dusheedii si walba way isku hordhigtay maba tamcaayaba xataa qalbigiisu uma jeesan baa la yidhi waayo qalbigiisa ayaa caafimaad qaba ninkan ilaahay buu ku xidhmay khalaas ilaahay qalbiga hay noo daweeyanaka kolkay ka quus beeshay ayay nin ari la joogay cidlo ugu tagtay kiibaa maaragtaani markaa ku dhacay ilmaha markaa caloosheedii galay ilmihii iyadoo wadatay magaaladii ku noqotay dadkii bay la dhex marto waxay ku tidhi ilmahan yar waxa iga dhalay ma garanaysaan maya ninkaa sheekha aad u haysataan ee Jurayj la yidhaaha caabidka isaga halkaa maaragtaani aan ugu tago ilmaha iga dhalay bay tidhi sheekhi baa dusha ka saartay miskiinka ahaa ilaahu ha nifidnayn aamin hada isagana maxaa ku socda maxaa ku socda de habaarkii hooyo marka waalidku hadduu ku soo eego waa duulduuliyo ogow waalidka ixtiraam waalidka ka ducayso
waalidkaaga u khidmee waalidkaaga ixsaan u samee waalidkaaga adu waxaad haysatay iyo adigaba waalidkaagaa kule ogow waalidkana waxaa laga doonayaa ilmahaaga ha habaarina habaarka ka daa ka ilaali habaarka haddii kale way ku dhici hadal wanaagsan kula hadal xataa ilmuhu hadduu kaa cadhaysiiyo sida inaku carabta iyo soomaali waxaa ku kala duwannahay carabtu curfi cajiibay leeyihiin oo fiican haddii waalidku inankiisu ama ilmihiisu ka cadhaysiiyo ma habaartamaana waxay yidhahdaan allah yahdiik yaa waladii allah yarxamak inankaygiiyow allah ha kuu naxariisto allah ha ku soo hadeeyo allah ha ku xafdiyo khayr allah ha ku siiyo bay is yidhahdaan soomaaligu maxay odhan inkaari kugu dhacday inkaar baa ku wada dhacday ba dhashii maanta balaaya ku qaaday baabuur ku qaad webigu kula teg wula tegi webigu de xageed ka soo gali markaa oday baa beri noo geeyay nin xanuunsan inan u dhalay u xanuunsan oo xidhxidho silsilad ku xidhan silsilad iyo jamaacaddu ziyaarteen markaasay u duceeyeen markuu soo baxay buu yidhi dhib kale ma jirtee dhibkan inankayga aniga ugu wacan oo anaa habaaray buu yidhi culayskiisiina maanta anigu ugu dhacay buu yidhi ilmahaaga haddaad tidhahda balaaya ku qaaday oo balaaya la tegto ama uu tarhiibo oo balaaya ku qaaday maxay ka dhigan tahay dee waa magafo gacanta u gal weeyaan yuu dhibi markaa hore yuu dhibay dee aduu ku dhibi baabuurku jiidh baa tiri uu jiray baabuurkii afarta adin buu ka jabay adigu ku dhibi lidaalika waa inaan afkeenna waa inaan wax saxa ka soo saarnaa oo hadalka kaa soo baxaya u fiirso waxaad tidhahdaa xataa ilmahaaga hadduu kaa cadhaysiiyo hooya allah kuu naxariisto aabbo allah ku soo hadeeyo ilaa maray samadu furan tahay baa jirto ilaahay ducada ku aqbalaye marka jurayjna isagana waxaa ku dhacay habaarkii hooyadii magaaladii bay naagtii la dhex martay ilmihii wicelkii iyadoo wadatoo leh jurayj baa iga dhalay jurayj baa iga dhalay jurayj baa iga dhalay balaayo raacday un baa la yidhi meesha aan moodayna inuu sheekh yahay ilaa waa shaydaan meesha fadhiya hadal u eg magaaladiioo guuraysaa u timid ninkii aqalkii baa lagala soo baxay aqalkan baa la yidhi waaba kaan macsiyadda ku samayside aqalkii baa laga jajabiyey isagii baa la garaacay hal mar keliya unbuu yidhi maxaa dhaco aniga la ii dilaya maxaan sameeyey bal ii sheega buu yidhi markaasaa lagu yidhi waxaa samaysay ma ogid ma ogi laagtanaa kuu timiday xumaan baad ku samaysay ilmahana way kuu dhashay ma ogid markaasuu yidhi may aniga maaha ilmahana weliba kuu dhashay iyadiina way hor joogtaa waxay ku leedahay waa ku sidee maanadi sawnagiis aragnay maabay ku leedahay tanaaba indhihii ka qaaday dad boqolka moobeel igu wada shidaan indhaha tanan igu daayay bas insha allah dhahaba nabiga ku salliya jurayj hal mar keliya buu yidhi markaa ilmahii yaraa mee waa kan baa la yidhi ilmaha halkan iisoo dhigoo idaayay buu yidhi ilaahay baan baryayaayo dacuunii usalli buu yidhi iyar daaya han tukadee telefoonkiisuu markaa diranaya isaguna xagguu u dirayaa waan xagguu u diranayaa innaka maanta in yar dadkeena dhibaata hadday u timaada muslimiinta xaggay u ordaan bay kula tahay abaar baa dhici hay-adaha loo qaylo tegi hay-adaha dowladdaa loo qaylo tegi na soo gaadhaay hay-adda cunnada adduunka haddayna noo soo gurman balaayaa nagu dhacday hay-adda cunnada adduunka hay-adda caafimaadka adduunka hay-adda nabad sugidda saddexda markaad ilaahay aad ka qaadaed makhluuq u nisbaysay ayadaaba dembiyaba taas hay-adda cunnada adduunka ma jirtee rasaaq ka caalamka quudiye arsaaqa waa ilaahay hay-adda caafimaadku ma jirtee ka caafimaadka bixiya waa ilaahay hay-adda nabadgelyadu ma jirtee ka amniga haya waa ilaahay meeshii ilaahay amni uu ka dhigo cid colaad ka dhigi kari mayso meeshii ilaahay uu caafimaad u qadarana cid xanuun u keeni kari mayso meeshii ilaahay barwaaqo uu ka ridana cid faqri ku ridi kari mayso meeshii ilaahay abaar uu ku ridana cid barwaaqo u keeni kari mayso jurayj ilaahay buu cilaaqo la leeyahay maanta isaga dhib baa la soo daristay laakiin intuu caafimaadka hayay buu rabbigii si fiican u caabudayey tacaraf ila allahi fi rakhaa yacrifuka fi shidda buu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam markaad barwaaqada ku jirto ilaahay garo maalintay dhibaata adigana kula soo daristo ayuu ilaahay adigana ku garan doonaya buu rasuulku yidhi marka barwaaqada aad ku jirto waa maxay caafimaadka markaad hayso ilaahay caabud dhallinyarada markaad tahay ilaahay caabud
amniga markaad haysa ilaahay si fiican u caabud arsaaqada markaad haysato arsaaqada ilaahay ku siiyo si fiican ilaahay ugu caabud maalintii adigana dhibaata kula soo daristo ka ku soo gurmanaya ducada ka aqbalaya waa kuma الله رب العالمين ويا جل وعلا أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون قليلا ما تذكرون أمن يجيب المضطر قفك دباتيسن كالدعاء كأقبليا الدعاء سأجيبيا الدباتة كفيديا كاسوا الله رب العالمين ويانه ما إله كلام عيسى مي وكلي إلهي عز وجل وأنا كلي قليلا ما تذكرون بإلهي إن يرماد وانتوبين بإلهين ليه حقدوا جلسان إسان جريج الراهب مركا وحوب العبي إنه إلهي تبارك وتعالى وحقي سوء جستو dadkii oo dhan asaas u hareero joogaan ay eegayaan naagtiina ilmaha halkan ay la taagan tahay ilmihiina halkan aa loo dhigay isagiina salaad buu ku jiraa ilaahay buu baryayaa salaadii markuu ka baxay uu ducadiisii ilaahay caza wajalla uu baryay ayuu ilmihii yaraa caloosha ayuu ka muday markaa buu yaa ghulaam ilmahan yare ee meesha joogow man abuuk ayaa ku dhalay oo aabbahaa waa kuma buu ku yidhi waa ilma imika dhashay muxuu yidhi aabbahay aabbaha waa kuma sheeg waa ninka hebel hebel la yidhaayo halkaa xoolaha ku raaca kaasa aniga dhalay buu yidhi waa saddexda nebigu uu sheegay sal allahu alay wasalam ee iyakoo yaryaroo naaska nuugaya yaraanta ku hadashay buu ka mid yahay yarkaa yar maxaana ka hadliyey tacalluqa ninkaas ilaahay ula lahaaba ayaa ka hadliyey tacalluq habaarkii hooyadiina uu ku dhacay oo uu fidnoobay laakiin fitantii wuxuu kaga badbaaday baa la yidhi uu noqdo ilaahay xaggiisa uu noqdo uu toobad keenay yaa allah dhibtan anaa geystee i badbaadi buu yidhi maanta waan ku badbaadinay baa lagu yidhi ilmaha yar caloosha taabo ka hadli isagaa runta sheegaye markaasaa ilmi yaraa buu ilaahay ka dhawaajiyo yidhi aabbahay oo aniga hebel hebel la yidhaahdee meel heblaayo adhiga ku jire miskiinkan maxaad u sheeganaysaan hadal caynkaas ayuu yidhi markaabay dadkii oo dhan u yimaadeen jurayj ayagoo markaa ka barakaysanayoo leh nacafi oo nasaamax nacafi oo nasaamax aqalkan kaa duduminayna ma waxaan kaaga dhisnaa maaragtaane dahab baan kaaga dhigaynaa waxba dahab ha iga dhigine cariishkiiyo dhoobadu ha igu celiyo halkaas ka maray buu yidhi salaama ilaahay inaan cilaaqo la yeelana loo baahan yahay raggeenna iyo haweenkeennuba asmaa bint abi bakr radia allahu canhuma waxaa qabi jiray zubayr bnu cawaam way ninkeedii baa safar nebiga u raacay sal alla alay wasalam waa xaamilad ilmay caloosha ku sidataa sahaydii looga tegayna maaragtane way ka soo goodo way ka dhammaatay laanna nicmadda maanta innagu aan haysanay hareeraha inaga taalla asxaabtu ma haysanayn quutulyoomka wax dhaafsan may haysanayn iyagu dariskeegana waxaa deganaa reer yahuudeed reerkii baa neef qashay baa la yidhi dharigii bay karsadeen waxay tihi carfigii dheriga ka soo baxay udugii ayaa aqalkayga iigu soo galay deedna gaajadii iyo baahidii ayaa igu ziyaaday tihi anoo uurle welibana waan isaysan kari waayo bay tidhi waxaanu imid naagta yahuudiyaddii markaasaan ku yidhi qori daba isii qorigii daba ii dhiibtay bay tidhi markaa maqsuudkaygu qoriga ma ahayne waxaan islahaa ha ku eegto wejigaada oo gaajada iyo rafaadka ha kaa muuqda ha dareento oo deedna maaragtana dheriganay karsatay xoogaha hilib yar iyo maraqa kaaga dartaan islahaa ilamay fahmina qori daba unbay ii dhiibtay bay tidhi haddana markaasaan ku noqdo ku yidhi qoriga dabkeeda siisa oo iga baktiye dab kale isii haddana qori kale unbay ii dhiibtay tidhi haddana mar saddexaad baa ku noqdo yidhi qorigii dabkeeda ii dhiibtay uu iga damee qori saddexaad isii kiibii haddana ay siisa markaan aqalka ku soo noqday baan ilaahay baryay tiri oon ooye bay tiri oon ilaahayow ilaahow baahidayda adiga unbaa ii dabooli kara adiga unbaan xaajadayda og maante anu makhluuqaa baahidayda u sheegan maaye yaa rabbi anu baahidayda adaa kuu sheeganiye ninkaygiina nebi maxamed buu raacay calayhi salaatu wasalaam ilaahow baahidayda ii daboolo isii waan ooyey tiri marka ninkii yahuudigii ee aqalka iska lahaye neefka loo qalay ayaa soo galay baa la yidhi gurigiisii isagoo oo socda markaasuu islaantiisii ku yidhi axad cid may nii soo gashay markaa bay tihi haa waxaa noo timida gabadhan carabiyadee dariskeena noo timido dab bay ii weydiisatoo dabkiina waan siiyey tidhi
وكدمي حدنا وانسيه marka ninka yahuudiga intuu ilaahay ku dhaartay buu yiri cuntada aad ii karisay cuni maayo ilaa gabadha carabiyada oo wax uga dartid mooyaane yaa dubaha ku dhiftay marka ilaahay baa ku dhiftay waldana waxa uu keentay maraq iyo hilib isla socda asmaa waxay tiri cuntada cunta iiga macaan badan adduunka iguma soo marin bay tiri laana way gaajoonaysa qisada waxaan u soo qaadanayaa haweenkeena inay haweenka ku daydaan baa loo baahan yahay oo baahidooda ay ilaahay u sheegtaan gabadh saalixada oo salafkii ummadda ka mid ah ayaa ninkeedii oo kala haya markay aragtay ku tiri war xageed u kala haysaa markaa buu de waa noo kasbi doon shaqa noo raadinaya iyo maciishad waxay tiri oo waad ka lahday haa oo adduunyo iyo shaqa noo raadinaysaa haa waxay tiri hadda bay dhageyso si fiican ii dhageyso aniga ubadkayga ilaahayna kaga baqbay ku tiri ilaahayna kaga cabso aniga ilmahayga gaajada adduunka waan u adkeysan karaynaa laakiin naarta aakhiro u adkeysan kari mayne luqmad xaaraan aqalka iga soo galin bay ka tiri bal ka warama haweenkaas gaajada adduunka waan u adkeysan karaynaa aniga ilmahaygu laakiin naarta aakhiro u adkeysan kari mayne luqmad xaaraan aqalka iga soo galin bay ku tiri waayo ayaka adduunyadu lama weyne aakhirada la weyn adduunyadu qiimo lama leh walla baray adduunyada qalbigooda nabiga ka jafay calayhi salaatu wasalaam laana ummadan ilaahay baa lagu xidhay ummadan culimadu maanta waxay leeyihiin maanta nuqsaanta ummadda ku dhacday wax kale maaha inagii ilaahay baa kala goonay bay leeyihiin maanta oo xidhiidhkii baa yaraaday wuu jiraa xidhiidhkii laakiin xidhiidhkii maanta uu liitaa xidhiidhka ilaahay aan la leenahay xidhiidhka salaada aan la leenahay xidhiidhka qur-aanka aan la leenahay iyo xidhiidhka qabiilka iyo lacagta aan la leenahay waxa maanta weyn bay culimadu leeyihiin qalbigeenu siduu adduunyada ugu tacalluqsan yahay aakhirada uguma tacalluqsano qalbigeenu siduu makhluuqa ugu xidhan yahay ilaaha khaaliqa uguma xidhno qalbigeenu dadka kale dhaqankooda siduu ugu xidhan yahay dhaqankii nabigeena uguma xidhno qalbigeenu sida maaragtaan maadada iyo ashyaada ugu xidhan yahayna camalka saalixa qalbigeenu maanta uguma xidhno waa difference noo dhaxaya innakii asxaabta nabiga asxaabu rasuulillah iyaku ilaahay bay ku xidhnaayeen salaad bay ku xidhnaayeen aakhiraday u jeedeen camal kastay qabanayaan waxay eegayeen camalka aakhiradeydii ma iga dhaawacayaa mise maaragtaanay mise aakhiradeeda waxba iga yeeli maayo halka inaku aan leenahay aakhiro hala gaadho de calala calan ee wax walba iska samee ilaahay baa qafuur raxiim bay ku odhan soomaalida dhimashadu ma dheero walaa tamuutunna ilaa wa antum muslimuun baa ilaahay yidhi ha dhimanina ilaa inikoo ilaahay adeecsan u hoggaansan mooyaane midkiin inuusan dhiman buu nebigu yidhi ilaa isagoo malaynta ilaahay uu ka malaynayo rajaynayo ilaahay khayr ka rajaynayo mooyaane marka shahawaadkeenna adduunyada dusheeda waa laynoo xadiday laakiin aakhira shahawaadkiisa qofka bini aadamka loo xadidi maayo ogaada shahawaadka adduunka waa lagu xadiday shahawaadku waa maxay maladaat waxa naftu ay jeceshahay xuduud bay shareecaddu u yeeshay cunadii acabkii guurkii shaqadii hadalkii qosolkii socodkii shareecaddu waxaasoo dhan way noo xadiday xuduud hadalkii waa lagu xadido nabigeennu waa kii lahaa laa tukthiru lkalaama man kana yuuminu biاllahi walyawmi alaakhiri falyaqul khayran aw layasmut baa nebigu yidhi qofka ilaahay la kulankiisa ku xisaabtamaya aakhira inay jirtana ku xisaabtamaya khayr ha ku hadlo buu nebigu yidhi ama ha iska aamuso khayr ha ku hadlo ama ha iska aamuso hadalkii waa lagu xadiday araggii waa lagu xadido waxaa lagaa yidhi waqul lilmuuminiina yaquduu min absaarihim wayaxfaduu furuujahum baa ilaahay yidhi muuminiinta waxaad ku amartaa baa ilaahay yidhi iyo gabdhaha muuminaadkaba hee inay aragoogana ay xafidaan farjigoodana xumaanta ay ka ilaashadaan waa shahawaadkii cunadii waa lagu xadido waxaa lagaa yidhi
kuluu washrabuu walaa tusrifuu cuntada cuna baa ilaahay yidhi biyahana cabba laakiin ha ku israafina baa ilahay yidhi oo israafka ka ilaaliya noloshiina baa laguu xadiday socodkii baa laguu xadido والذين إذا ذكروا بآيات وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا إله الرحمن كأبومه سواكوه وكوا أرد كركي إذا مركز السعونيان هونا آير دقنان يحسلوني بيكو السعودان دقنان سكينة كموقت ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا قلت مركات كرسع تبا إلى هاي كليهي كبر يا منان أخمار تاني عرض دوشيدا هاوسعون وسعود كاغا سعود كمتكبرين تا دتك كبرانيين تسدود هاوسعون هذا عرض دوشيدا متكبر أدقوا وسدا متكبرين تا أبو دول سعوتو دول كان كلا دلاعين ميسد با إلى هاي كايري بوراها نرر مقادي سيدي socodkii baa lagu xadiday hadalkii baa lagu xadiday maqalkiina inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula maqalka araga iyo qalbiga intaaba qiyaamaha qofka waa la weydiin doonaa waa lagu weydiin aakhiro markii la gaadho miya aakhiro markii la gaadho shahawaadkaaga waxaa laga dhigayaa free مطلق ما دمنيس ما قبوميس ما بكونيس ما قاجونيس ما هراديس ما سيحانيس ما والوليس ما والبهاريس وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وفيها جنة بحدة وحا هذا إلى هيري ومؤمنين تقوها هذه وحا نفسده ذو أي دونتو إيشودنا أي معاسته ودارتانا ويكوا الريان ولقد كصبح ما يابا إلى حيدي ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون ولكم فيها جنة بحدة واحد كل ذهين واحد نفتين أي دونتو يا واحد عربك كشيغتان واحد عربك كشيغتان والله هردقي واحد قلبك كوكبتان والله هردقي جنة بحدة waxaad qalbiga ku qabato ee carabka wali aad soo marin ayaa jannada horteeda ku hor imanaya baa leeyahay shimbiraha jannadu baa leeyahay waxay leeyihiin geela adduunyada shimbirta adduunyada waa la qashaa dadna waa la kariyaa shimbirta jannada buu nabigu yidhi hee iyadoo karsan oo baadalla oo duulaysa ayaad qalbiga ku iman dadna iyaad qalbiga ku qaban way ku hor fadhiisano waxaad odhan doontaa iyadaa kuwa hadli doonta odhan doonta yaa waliyallaahi kulli weligii ilaahay adduunka ku soo adeecayow icun bay odhanaysaa marka icun yaa waliy allaahi kulli cuni uu cuni uu cuni uu cuni markuu dhammeeyo ayadaa odhan doonta ma iga dheregta ha waan kaa dhergay way duulaysaa sideediina way ku soo noqonaysaa buu rasuulku yidhi walaxmi tayrin mima yashtahuun baa ilahay hilib shimbireed iyo waxa naftoodu ay doontay jannada dhexdeeda ku leeyihiin jannadaasuu ilaahay markaa inoogu yeedhaya shahawaadkeenna marka adduunka dusheeda shareecaddeena ha ku ilaalino ha xadgudbin shareecadda marka daartaa jannada ilaahay noogu yeedhaya nolosha dambaa ilaahay noogu yeedhaya adduunka dusheeda waa meesha ilaahay lagu raali gelinayey amaa waxaad naftaada raalli ay ku noqonaysay adduunka dusheeda ma yaalla aakhirada lagu dhigay maxaa yaalla adduunka bal sheeg xidhiidhi baa yaalla cabsi baa taalla gabow baa yaalla bugtaan baa taalla abaar baa taalla faqri baa yaalla walwal baa yaalla masiibaa taalla walbahaar baa yaalla cidhiidhi baa yaalla faqri baa yaalla ma taalla adduunyada nolol saxa maa nolosha waa inaan aakhirada aan isku diyaarinaa oo aakhirada maxaa loo qaadanayaa diin baa loo qaataa bas iimaan iyo camal saalixa loo qaataa qofku in adduunyada uu kala tego isagoo le laa ilaaha ila allah muxamadun rasuulu llah raggii hore rabbaaniyiintu waxay odhan jireen calayha naxya wa calayha namuut
وعليها نبعث يوم القيامة إن شاء الله آمنين من النار كلمة داسا كدل نولا لنا وكل مننا مالك قيامها إن شاء الله يدا الله صبيح دونا وإلى هاي نارتنا قبل بعدين دونا بورجر علماء دي هرين بركة لا إله إلا الله وإلى هاي نسيي وأنا قلبنا لا إله إلا الله كذا دعنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم محل وجد جدا إن عن طريق النبي جنا مرنا صلى الله عليه وسلم النبي جنا أنولا أنولا سكدون ما dadka kale sida u noolyihiin ha u noolaan nabigaaga sida u nool yahay u noolow ku daya nabigaaga sallallahu alayhi wasallam suuradiisi noloshiisi socodkiisi waxa uu ku hadlayay dharku xidhanayay sida uu xiiranayay sida uu jiifanayay sida uu cunayay sida reerihiisa ula seexanayay sida uu soo kacayay dariiqa dhinacu ka marayay dharka markuu xidhanaya qaabku uu xidhanayay kabaha markuu xidhanaya qaabku uu gashanayay wax walba waa la noo qoray وشخص كلية تاريخ ديسا هذا حبل لقيت تجيني كتاب لقو قريبا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم إلهي با إلالني أنه لشيس للنبي بوها إلهي با جعل هذا معصوم بوها وحي القرآن قال إنه قصو ديبي وإمام كدنا أمد الدنيا كنا ولودن إمام كودي بوها مركا نلشيس ولا نقري هذا الذي سيبا قرن وفعل كي سيبا قرن ودرك قاب كو حيرنا يبا قرن وتمها مركو حيرنا يقاب كو حيرنا يبا قرن وقعدت من يقول استعماله يبقى الله قري تبديه هو استعماله ولا ما قري سلام قفك مركو سلام ايو مدكتو استعمال جري مركو قفك وحسين ايو مدكتو كسين جري مركو قفك وحكا قادن ايو مدكتو كقادن جري مركو ميدن ايو مدكتو بيها كشب جري مركو تبها حيرن ايو بفورك مدك بوكو بلاب جري مركو جيفن ايو مدكتو اسحان جري مسكينك مركو سوغل ايو مدكتو كسوغل ايو بيت الميغا مركو قليو مركو بيت الميغا كسو بحايو مدكتو كسو بحايي مدك فرقلك مدكتو بشنايي عندما مدكتو كو عنايي بيها مدكتو كو عبايي قفك مركو سلامي مدكتو كو سلامايي صلاة مركو كبحايي مدكتو كسلاما نقصنايي وحي وناغو دن مدكتو استعمالايي وحي انت كسو هارو دنك عنت بدحكو استعمالايي بل هذا محونا بيقول استعمالايي قالوا فضو طفي حقا ابو كتفايي سحرنا مركو اسكميدا يستنجدا بدحدو استعمال جري بدحدا مسكيتي مركو كبحاي بدحدو كغبحايي بيت الخلاء مركو قلي بدحدو كغلايي دارك مركو صارايو بدحدو كسار جري كبها مركو صاراينا طب بدح بورت السيده يا رسول كين دقن كاسي مانتا اوي بل شيغا دقن كا ايا مانتا diinta dadku waxa ay haystaan salaad kaliya kay noogu diin fiican waa ka kooranaya shanta salaadood waa tukadaa ya sheekh maxaa in laga rabaa soo sadama kana waxa ka sii liita ka afarta waqti tukada bas afar tukade subax macna shaqo kuma leh kana waxa ka sii liita ka jumcaha soo xaadiraya kana waxa ka sii liita ka labada ciidood soo xaadiraya kana waxa ka sii liita ka maalintu dhinta reetolkii miskiidka intay keenaan كنت كذا إليهين نبينا محمد عليه الصلاة والسلام أمدي سنبي يقول حوليهم ده شريعة دي الدين ما يسترب حوليهم ده دين كامل ولا ما يسترب أركاينا دين تينا برنو ونوبت كينا برنو وندت كينا دين تجارسينو ونمد خيرك وشجنو ونمد خيرك لا دحمرنو وخيرك ومد الله سعنو صدق بس سعودك يكون في عينيهين مسلم إسلام دينته إسلامكو سعود بيكون في عنته هاي روبكنا سعودكو يكون في عنيه هاي مرتدنا السعود يكون في عنته هاي مرتي هذا يكون دول فريسة تكورن وليس كده لا يبقى أنا قصد عشادان واحد قبض اللي جونه عندنا نوع إيماني ما يسوى لكن هل مالي هذا اللي جونه ونوع عمل المساجد إسلام لماذا يدينته إسلام كنا صعدك كوفي عنها والله لا صعد دينته وين المسلمين تززيارتان اسكننا استحيان خير اسكو براروجيان وقت جوجا ينتهي قيبيان قيمنا دينته إلهي أي قليان ضرورة الرب كنا واحد كوفي عنها وصعدك وهاي الرب ميل كلي أدو كده أدو أنت كلنا أباربا كدعي مشى وكده أين ومشقيني لذلك النبي قال نوح ورنجري مثل ما بعثني الله من العلم والهدى كمثل غيث بان النبي يقول حديث معني سوا حنونك يا علمك الرب انيغا الى سو ساري waxa uu ka dhigan yahay buu nabigu yiri sida roobka oo kale roobka waa ay
roobku meel keliya kuma da'aye buuraha dushoodana wuu ku da'aa badahana wuu ku da'aa beriga wuu ku da'aa dhulka saxraaga wuu ku da'aa cidda u baahan buu u da'aa cidda aan u baahnayna roobku waa u da'aa roobku waa raxmad marka rasuulkeenu waa raxmad risaaladiisu waa raxmad qur-aanku waa raxmad ummaddani waa ummad naxariisa inaan raxmaddaa la soconno ummadda gaarsiino yaa diyaar garoobayo niyoonaya insha allah dhahada soo diyaar ma nihin insha allah bal waa lana eegi doonaa insha allah waa lana eegi doonaa reer mandheerow inaad dhegaysiga ku fiican tihiin iyo inaad socodka ku fiican tihiin waa lana eegi doonaa laakiin annagu waxaan jecel lahay jamaacadada ilaahay dartii u socda ee maalkooga naftooda ku bixinaya ee naftoodana soo islaaxinaya ee walaalahooga muslimiintana soo baraarujinaya dadkaasaa ummadda wax taraya naftooda wax taraya markaa nin baa la marti qaado wuxuu yidhi cidda maanta la marti qaadayna way mahadsan yihiin waxaana ka sii mahadsan ninka berrina marti qaadi doona dadkaana dhegaysanaya ee masaajidda soo camaraya diin jacaylku ka muuqdo waad mahadsan tihiin laakiin waxaa ka sii mahadsan ninka noogu yimaada hargeysa iyo jabuuti isagoo jamaacad la socda insha allah dhahada inta kalena sheekh ibraahim baa noogu daray insha allah